xaflad ay ku qalin jabinaysay ardayda macadka barashada shareecada iyo carabiga ee ibnu taymiya ayaa ka dhacday degmada ceelbo ee gobolka sanaag. xafladan oo ahayd mid sida aada loo soo agaasimay isla markaana ay kasoo qayb galeen odayaal, haween, culimo, diin, dhalinyaro, waxgarad. sidoo kale waa xaflada kasoo qayb galay wakiil ka socday jaamacadda bariga afrika, gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Maakhir University, gudoomiye ku-xigeenka maasada Al-Minhaaj, gudoomiye ku-xigeenka qaybta dacwada Al-Minhaaj, maamulayaasha dugsiyada Al-Nuur, Baran iyo Najaf Ceelbo, abwaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaa halkaasi ugu horeyn ka hadlay maamulaha macadka ibnu taymiya Sheekh Mukhtaar Cumar Axmed. inta ka soo qayb gashay ugu horeeyaan jaamacadda East Africa iyo jaamacadda Maakhir. maanta waxa weeyaan waa maalin aad iyo aad farxad inoo ku ah. waa maalin waxaynu beeraynay midhihiisii aynu maanta aragno. waxa weeyaan haddaan awalan in yar ka taabto macadka ibnu taymiya oo hore loo oran jiray macadul imaam al-Bukhari oo haddana isu bedelay macadul ibnu taymiya. macadka waxaa la furay 2014 bishii labaad ayaa la furay. dufcadan hadda qalin jabinaysana waa dufcadii ardaydii ugu horeysay. waxaa sidoo kale ardaydii qalin jabinaysay halkaasi kusoo bandhigeen culuumtii kala duwaneed ee ay baran jireen muddadii ay dhiganayeen macadka. حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لضيات مطايا وأرحل وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى. sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta ardayda u qalin jabinaysay. maalin farxad weeye, ma malaynayn wax badan dalku waxa weeyaan wax badan baa isbedbedela. maanta ma malaynayn in la yiraahdo arday baa iyadoo halkan carwo waa soo joognay, iyadoo waxba ka socon waa soo joognay, iyadoo maxaan ku waxbarashada hooseyso waa soo joognay. waxa weeye waa alxamdulillah. maanta haddii arday ay ka qalin jabinayso maxaan ku dhahdaa maxadada ay ka qalin jabinayso. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka maasada Al-Minhaaj Sheekh Ciise Sheekh Faahiye, waxaana uu sheegay in markasta ay maasada Al-Minhaaj garab taagan tahay macaahidda iyo sidii loo tayeyn lahaa. dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka qaybta dacwada Sheekh Cusmaan Maxamuud Xaaji Dir ayaa bulshada reer Ceelbo ku ammaanay sida ay markasta horumarka ugu sii tallaabsanayso, waxaana uu dadka ku booriyey in ay dadku markasta ay bartaan tan diiniga iyo tan maadigaba. sidoo kale waxaa halkaasi ballanqaad deeq waxbarasho kaga dhawaaqay mid ka mid ah wakiil ka socday jaamacadda bariga afrika Sheekh Aadan Sheekh Cabdilaahi iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Maakhir Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Ali oo labaduba sheegay inay labada arday ugu sarreeya ay siinayaan deeq waxbarasho bilaasha. من حد راسي بانو بلنقادنا أرجع بسرية حلين من حد راسي إن شاء الله تعالى بجامعة وجود يغضي وأولنا هيسولوا أرجع كلنا إن شاء الله تعالى وحن لقى بنكرنا الدلالة وحبكها كرمين وحي مركز الدلالة لقى بنكرنا وحبكها كرمينه لما أنه وحلين مرت شرفته سامع أوكي أنت حاجة قد بيا حاجة كمان واحد ربع جامعة ماخر أيوة مدة بنشرتي إن أنا أضل الله بعدينه jaamacadihii muddada jiray ee xoogaa maxaan ku raahdaa waqti ahaan iyo waxyaalo kale oo fursado looga haystay. marka waxaan leeyahay arday baanu ka qaabilaynaa kuliyadda shareecada oo waxaan leenahay arday waan qaadanay aan u qaadanayna deeq waxbarasho. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa ugu dambeyn xafladda soo xidhay gudoomiye ku-xigeenka degmada Ceelbo Mudane Cabdilaahi Dhaayo oo isagu ku dhaliilay jaamacadaha gobolka inaysan waxbarashada ay jaamacaduhu bixiyaan aysan waxba ka siinin deegaamada. waxaana ugu dambeyn shahaado sharaf la guddoonsiiyey ardayda qalin jabinaysay. macallimiinta iyo waalidiintu waa iskaashadeen. waxa iskaashigooda u noqdayna waa xafladda aynu maanta u fadhino. haddii aan waalidiinta iyo macallimiintu maskaxdooda iyo muruqooda iyo maalkooda isu geyn ardo inoola soo baxdeen. waxaan leenahay oo waa ogtihiin oo xoogaa wax badan inama soo gaargaaraan marka maamulka iyo
macallimiinta iyo waalidiinta oo iskaashaday waa macallimiintu warshadii rogaysay tahay waalidkuna uu la barbar taagan yahay waana markii ugu horeysay oo arday noocan ah ka qalin jabiso macadka Ibnu Taymiya oo ku yaala degmada Ceelbo. Axmed Maxamed Axmed British Television caalamiga SABC TV Ceelbo Sanaag.